ساكي دتك مانشستر واد بي قصر قريريان واد بلدقيان كدي مركي حل ليفربول قراعي غريسكا جانوري با لا مريا ولي هورت هوريالك waa dheeryahay laakiin Manchester United isbuuca dambe horyaalka kan iyaga hoggaan ku qabanaya hadii ay guuleystaan ama ay barajo galaan Liverpool xal waa laga badi bariyahan baan idin lahay Liverpool cimad ma lahan Liverpool xoog ma lahan war Liverpool waa galab baan idin lahaa Liverpool sanadkan waa 0 qofka horyaalka laga qaaday rabna shaab wuxuu leeyahay shaab ayuu leeyahay laga arko yaa shaab keeda laga arkay Liverpool inay sanadka kanu galab tahay sababtoo ah dadkii dhan baa laga dhaawacay difaaciye ma soo gadanayaan waa koox Henderson difaac u ciyaarayaan iyo ninka in la yiraahdo Fabinho waxa maxay qaban karaan ciyaaraha marka sanadkan Liverpool meel loo wadaa nimanku bariyahan marka waa galabo xalayna Southampton ayaa ka badisayo wariyay Southampton ayaa tan waa soo dhigatay ka war laacibkeedii hore ee lagu magacaabo Danny Ings ayaa ka dhaliyay xalay goolka hore ciyaarta markii la laaday yaa uu laaday ciyaartoyga bariyahan Borussia ku khatarta badan ee James Ward-Prowse ayuu Ings intuu ka dulqaaday gool hayo banaanka jooga ninka la yiraahdo Alisson uu ka dhaliyay goolka Liverpool ayaa tan waa 0 hal gool oo laga dhaliyay daqiiqadii labaad aa loogu jiiday ciyaarta xalay oo dhan ma taqaana hal shoot oo target ay sameeyaan marka Liverpool shor uma leynaysid adaa waahay waa ku khaldan tahay mid taa marka nimankan sanadkan waa 0 walla ma United saaka waa qusul gariirayaano baba saas bay leeyno soo runtii قصل باي ما تخانا ساكي لا dhimanayaan oo ay la qunfacayaan oo ay la baashaalayaan oo ay meel kasta la joogaan saakay cidu saakay lama cili kariye waa ka goolkii laga dhaliyay waliba Liverpool goolkii labaad baa laga dhalin gaarayo xitaa iyadoo goolahayuu la dhaafiyay kubadda ayay kubaddii waxa soo celiyay ciyaartoy Liverpool marka Liverpool xalay marada ka dhacday marka Liverpool sanadka kan aad bay ugu jaban tahay haddaba hoggaanka Premier League waxa isla haya Liverpool iyo nimanka la yiraahdo waxa isla haya nimanka la yiraahdo Man United waxaanay wada leeyihiin 33 dhibcood ugu todobaadka dambe gaar ahaan talaadada soo socota Man United baa ciyaari doonta waxaan la ciyaaraya kooxda Burnley Liverpool lama ciyaari doonto taas waxay ka dhigi doontaa Man United kulankii gacanta ku haystay ay ciyaari doontaa haddii ay badiso United 3 dhibcood oo nadiif ay ka sarmarayaan kuwa ka kadib kulankooda maxaa ku xigma taqaana Liverpool vs Man United واو مالكا اي ما يونايتد ليفربول عياري دونا markuu ay ciyaari doonaan lacala hadii United ay Burnley ka badiso iyagoo hoggaan ku haysta dhibcood bay noqon doontaa kadib waxay iska hor imaanayaan Liverpool afina bay kula ciyaarayaan hadii ciyaarsa baraji kalaan afar dhibcood waxay horeeyaan waa meesh faa'iido u tahay runtiyo barbaraha ka nimanka kama daba imaanayaan hadii ka badiyaan oo Anfield ku soo garaacaan lix bay ka sar marayaan hadii iyagu laga badina Liverpool baa ciyaarta soo ceshan doonta hoggaankiyo barbarihi baa dib loogu soo laabanaya marka Real United todobaadka kan waxa weeyaan waxay u tahay todobaad fiican oo sanadka kan Manchester ishaar fiican baa ka muuqanaysa oo runtii cidatan yaa waxa laga arkayaa ishaar fiican oo waxaan maqli jiray yaa waa ka dhamaatay dhac ku dheel Liverpool bariyahan waa la isaga ciyaaraya war ma nimanka ilma ciyaar Fulham iyo West Brom iyo Newcastle marila hal Southampton ay garaacayso nimanka waa iska garaacayo bariyahan oo waa ka dhamaatay Liverpool ma ahan Liverpool si xoog badnayd Liverpool waxa la iska gishanayo la iska gargaraacaya ayaantan kana garaaca kanu barajo la gariya kana garaacaya laba sano la soo dhaaf inta Liverpool laga badiyay waxa ka badan sanadka laga badiyay baa ka badan marka Liverpool galab bay noqotay runtiyo cid waa ka dhamaatay oo marka Manchesterna runtii aad bay u qusul garinayaan runtiyo todobaadka dambe iyaga iyo hoggaankii Premier League ayaa sida ka isku akarkaya England Premier League sanadkan aad buu ku waalayayo runtii waa mid fantastic ah waad la yaabaysaa sida sanadka la isku hayo runtii Manchester United xari gambarkooda ma khasaarin Allah ilahe gambarkay dhigteen saakay magaalku Rio Devils baa iska leh saakay nimankii ahaa yaa reerdooda ay Liverpool saakay meel laguma sheego aan ooye albaabkay xaraay baa hayso nimanka kanuun saakay waxay leeyihiin yes isbuuc talaada dambe hoggaankan qabanaya horyaalkan raba Manchester ayaana doonaysa inay ku guuleyso horyaalkeedii ugu horeeyay muddo 7 sano kadib ay doonayaan Man United baana raba inay koobka gacanta ku dhigaan maadaama Liverpool iyagu ay ku soo dhaweeyeen dhanka horyaalka Liverpool 19 horyaal bay marayaan halka United ay marayaan 20 horyaal markaan yaabay xalay diiqyeerkii oo aan arkay halka hawshu sanadkan ay marayso sidaad kooxu dhan ay ugu dagaalamayaan horyaalka Premier League baa hal mar waxa igu soo dhacay walla war waaba jiraay sanadkane yaa wiishka hayeero maxaa yeelay hadiiba Liverpool sida galab u tahay oo sanadkan kooxda 8aad ku jirta kooxda 6aad ku jirta iyo kooxda 1aad ku jirta ay u dhaxaysay shalay 4 dhibcood
ولنا هدا u dhaxayso ugu yaraan markay minutay xalay yani istir sidii ay la joogo oo afar dhibcood farqi u dhaxeeyo waxa weeyaan horyaalkan ma saadaali kartide sanadkan yaanu warkaaga tagin horyaalka weeyaane shib iska dheh warwaba jirahay sanadkan uu iska yiro ku dhacay Liverpool maxaa ku dhacay Reds maxaa Liverpool bedelay maxaan u dhahayaa Liverpool waa galab cadayntu waatan in Liverpool galab noqotay oo Liverpool ay 0 noqotay waxaad ku dareemaysaa Liverpool wax gool ma aanu dhalin 258 daqiiqo la soo dhaafay iyadoo weeryahanadooda baryahan ay muuqbeeleen maanigi iyo farminkii iyo saalixi wixii la sheegayo dhanba baryahanu galab bay isu bedeleen weerarkoodii ma lahayo kooxdanuna wax gool ma dhalin 258 daqiiqo marka nimanka meel loo wadaa mid kale xal ciyaartu markay dhamaatay waxa ilin la dhacay oo ilmeeyay tababarihii kooxda kubadda cagta Southampton hal mar buu ciyaartu markay dhamaatay ilmeeyay war maxaa ku dhacay inuu Liverpool garaacay Southampton managerkeeda ama tababaraheeda Ravel Hanshood waxa uu bixiyay reaction weyn oo la yaab leh markii uu Liverpool garaacay maxay waxay xalay markii ugu horeysay taariikhdiisa Liverpool oo dhibic ka qaadanayo ama uu koox uu kala wado dhibic ka qaadanaya buu ahaa xal iska dhaafay 3 dhibcood buu kuwa ka reebtayo waxay marka runtii waayihiisa managernimo ama tababarnimo markii ugu horeysay bay ahayd ee uu nimankan u Jordan kala koox u wato uu garaacay bay ahayd marka waxay guul uu la ooyay bay ahayd tababarihii kooxda Southampton xitaa waxa la arkayay tababaraha Liverpool ninka la yiraahdo Master Jordan Klopp oo ayaa arkayay ama markuu ninkan ciyaartu dhamaatay wuu yaabay wuxuu leeyahay war ma annagu inaad ma garaacdaan bad ayaanta la ooyinaysan buu leeyahay ayaanta ma inaad annaguna garaacdaan bad la ooyaysan buu leeyahay ninka la yiraahdo Jordan Klopp maxayna wuxuu arkay inuu si u fiirnay buu fiirso saabuto uu fiiriyay ninkii foorsanaaye markii ciyaartu dhamaatay buu tababarihii Southampton intuu fariistay ooyay oo la farxay guushii xal uu ka gaaray nimanka Champions-ka marka buu wuxuu u muuqday Klopp inuu leeyahay والله سنة كأني قال دلكي قال راتسوني ولا يمعناه ما هي لك كوحدو تشامبيونز كا كوح كستا أي راتستين بيرك قراعو ليفربول سنة كان ميت كستفرتو كتا جاي وحول الدنيا إنه لوك إلا بك جويو مركز الكل بيتو يا وحول لا يا أرانيجا سنة كواقع عنقلي ولا يهاي ميت كستا أنيجو يحصل دوبنا يا إن ليفربول زيرة واحد كود دريمسها ليفربول لبع عيار بس لبع نبعود بس هالشيء سد حيدي عيارات إلا صنع في مدك الأجو ياردي كلام وحول آمسين هاي هريال كان إن لوجا عن جلينيا مان يونايتد صابتوا حلو يحول لا يهاي ريغورين عتبة اللي جديدي مانشستر وقول الله وعما مضيو هذا محا كشرة إن مانشستر ريغور الله وعما مضيو ياردي وحول لا يهاي ساكي عدالة هريال كان ويرتهاي صابتوا ولا يا مالك استما يونايتد بنالتي بالله لكن إنه وانا لقو كوركورة وحول لا يهاي ما يونايتد وحل السي مدة لبس سنة يا كبدن لبس سنة يا لبس سنة من يونايتد ريغور السي وحي كبدن تقول يهاي أنت أنا وش سنة السي ريغورها يعني وحول لا يا مايونايتد جورودو وافكاره لكن عذر دار وما هي نقول عليه حال إن اللي جبدي ما عذر دار يا لكن وحن لا يا ولا ياي إنه لبب بين التبان اللي جديد ولا ياي نيكل هذا سدوا ماني أيها وحل أنت بدل لو هذا يا سجنوا يا ميت استور طرق يعني لا لكن كله وحول لا ياي وكفتن كأجوين بولا ياي الدون كشرة إن ماني وياين استورة وحنقول لا يا حال لبب بين التي ayaana laga diiday buu leeyahay halka United maalin kasta goor la siiyo ciyaartii ugu dambeysay United penalty ay ku ay heleen dhamaadkii ciyaarta oo uu ninkii Bruno Fernandes ahaa tuuray waanu dhaliyay marka ninka Jordan Klopp wuxuu taagan yahay nimankaas waa malaha Manchester United buu isleeyahay oo yaani VAR baa u cimamadayo penalty baa loogu cimamadaya marka wuxuu leeyahay United marka sarigooradeedu waa afkoore laba sano inta hore lagu siiyay 5 sano ma lagu siino taagan yahay haddaba ogow waatay kooxda ugu rigooro badan Premier League tan iyo xagaagii la soo dhaafay bilowgiisii Premier League marka laga hadlo 6 kooxood ugu weyn horyaalkan Ingiriiska tan iyo bilowgii sanadkii la saxiix xilaareedkii la soo dhaafay Man United baa kooxda rigooraha ugu badan loo dhigay waxaana Man United loo dhigay 20 rigoore halka Man City loo dhigay 14 rigoore Chelsea 12 rigoore Liverpool 10 rigoore baa in loo dhigay odow marka wuxuu leeyahay mujida 10 laanan la sii gurteen xagaagii la soo dhaafay in 20 baa la siiyay halka Arsenal 7 la siiyay rigoor ah Tottenhamna waxa la siiyay 7 rigooro marka Jordan wuxuu aaminsan yahay kooxdiisu sanadka kan in si gooniya loo kurkurayo laakiin dibtu weyn Liverpool waxay tahay dhalintii ay dhibaato ka qabaan Man City baa sanadkan bilowgiisa ku weerarsanay dhibaato dhanka dhalinta inkastoo toddobaadkan uu fardi bixinay gool badan ku xaqeen Chelsea laakiin Liverpoolna bariyahan weeriyahanadoodii goolashi baa ka dhumay hal nin bay Liverpool tabaysaa oo dhaliyaha ahaa waa Diego Jota habeenada qaar Mohamed Salah iyo Mane iyo Firmino ay gool waayaan Liverpool way joogtayn jirtay oo
jowta lagu baxsan jiray laakiin baryahan siduu joota u dhaawacmay liverpoolna waa galab tusaale aan u fiirso jowta tani markuu dhaawacmay liverpool laba ciyaar bis bay badisay waxaanay bareejo ka 3 jeer hal jeer bis baana laga badiyay waxaas wax macquul maahan liverpool 16 ciyaar waxay badin jirtay ayaantan waa ka saasa ka xaala u fiirso tani markuu joota dhaawacmay bareejo bay galeen waa badiyaan bareejo bay galeen waa laga badiyay marka ilaa ininkan ka soo laabanaya xataa liverpool waa loo yaabaa marka runtii khatar bay ku jiraan liverpool waliba reer Man United waa qasul garinayaan saakayo markay ogaadaan reer Man United in toddobaadka dambe iyagoo ay ku raaxaysanayaan hoggaanka Premier League ma celin kartid maanta xataa biri ma celin kartid waxaad og tahay u fiirsiyaa markaad og tahay in biri toddobaadkan la ciyaaraya Carabao Cup Ingiriiska toddobaadka soo aadan la ciyaaraya FA Cup la ciyaarayo oo Man United bis ay ciyaari doonto Premier League habeenka Talaadada isbuucan inta ka dhiman oo dhan Man United magaalka looga kala leexdo yaa cidawad ogtiin cidii hoggaan qabatay looma noolaan kara malaha yaa waxa weeyaa waxba lagama qaban karo marka iyagoo og baanta oo Talaada ah ilaa Talaadada kale way iska dabaaldegayaan waxay leeyihiin yes Burnley ka badinayna hoggaanka waa haynaa Burnley ka badinayna hoggaanka waa haynaa annaga geedka annaga iska leh umadu qaadan karta Liverpool oo ayaantan yaa duurkiina kala gala ha isku soo bixino yaa nimanka Southampton ay ka badinayso shaqo ma rabaan ninay Southampton daqiiqadii labaad gool ka dhalisay ay ugu dhameysay Liverpool shilay qaalimahan shaqo ma rabtiine yaa sanadka kan geedkan armuba United u raba anigu United waan aaminsanay sanadkan inay shaqo u diyaar yihiin baan aaminsanahay sanadka kan balaya weer ka joogta meesha taa habeenku hadda xataa wariyaha fiiriya cagsigii Liverpool markaad ku adkaynayso habeenka dhan wad naxaysa kaadiyo lagu gudiri jiray balaya isdaba ordayso maanta ay weertamay hadda United u fiirso habeen wal markaad istiraado ku adkay balaya isdaba ordaysa Rashfordki Cavani Bogbihi Barwini Rashki maxal raday Greenwoodki Martialki waxba uu isdaba ordaya maanta dhan kaadiyo kugu dirayaan shaqay diyaar u tahay Roy Devils adeeg baa ka muuqda raganimo ma ka muuqata ya serious bay ka tahay United marka isbuuca dambe nimankan hadday badiyaan aan bareejo galan iyaga hoggaan ku haya mid kale Liverpool shil lagu sheegayo waa Liverpool yaa difaac u ah ninka la yiraahdo Henderson iyo maxal raada iyo Fabinho laba daqiiqo gool looga dhalin macna markaad laba nin oo qadax aan jira difaac ka isu geyso waa ku dhamaatay yaa laba daqiiqo hal goolkood ma difaacan yaa difaacida cusub Liverpool waa kaas anigu waan fahansanahay kooxda horyaalka laga qaadi karo markan oo kale markay xaalad sidan marayso dabeecadaha horyaalka la isaga qaado anigu aad baan u garanayaa City markaan dhahay horyaalka waa laga qaaday sanadkii hore kurki koowaad ay ahayd may labaad ay ahayd waxaan rigeedka Liverpool iskale maxaan u yiri waxaan arkay in meel loo marayo Man City haddana Liverpool baan arkaya aniga kuma dhahay Liverpool horyaalka waa laga qaaday ama waa laga qaadi doona kuma dhahayo laakiin waxaan ku leeyahay ishaarta koox horyaalka laga qaadi rabo anu Liverpool way gala muuqataa sidee ku tahay kooxda horyaalka laga qaadi rabo masiibo dhaawac baa lagu imtixaamaa kana laga dhaawaca Fandajow maxal raday Matibow Gomisow war difaaciyadoodii dhan wax u normal ah xataa Jota waa laga dhaawacay marka kooxda horyaalka laga qaadi rabo horta markood ciyaartooyga laga dhaawacaya waa sababtii aan u yiri Man City waa laga qaaday maxay sanadkii la soo dhaaf Man City dhowr ciyaartooy baa laga dhaawacay bilowgiiba maxaa kaloo cadayno in horyaalka Liverpool laga qaadi karo waxa cadayn u noqon karta nimankan ka weyn gashanay waa iskibirnay macna macallinkaaga lagu maray madaxda waxay leeyahay ma taqaanaa ma difaac ma soo gadan anaga Fabinho waxa idin ciyaar difaac ma marka Henderson difaac idin ciyaaraya ya okay ba ya Manchester موجدا عدا يا ميلان لو مرو iska dhaafa waa kibriyan wuxuu leeyahay ma taqaanaa ma difaac ma baahnin Reis Williams baa noo ciyaaraya ahay okay ba ya waxaan u maleynaa xataa Anfield shaadii 3 sano lagaga badi waayay in marka qaar loo socdaan u maleynaya ya marka Liverpool laba arin oo la isu geeyay wax u muuqataa nimankan sanadkan in geedkan malaha laga qaadi karo way u muuqataa dhaawacyadii lagu asiyo waliin iska sii socdo lagu daray kibirka ku aadan inaysan wax difaac qaba inay qaadan rabin January waxay leeyahay difaac ma rabna anaga sidan baan ugu filan Fabinho iyo Henderson ana u ciyaara difaaca laba daqiiqo bis baan gool looga dhalaya okay ba mid kale gool hayi xalay Liverpool aad buu u adkeeyaa Fraser Foster tan iyo 2017 gool hayaha kan Liverpool wuxuu ma taqaana shibqiska ilaashtay 3 jeer waana gool hayaha ugu badan ee mid sameeyay ogowna Liverpool 5 ciyaarood oo waxa jira Liverpool ciyaarta oo dhan Premier League ay ka sameeyeen hal shoot oo target
يا ليفربول ما هبين كده هل تارجت سمينيسو sababaha ku cadeynay nimanka in sanadkan galab yiin bay taa ku sheegaysaa Liverpool waxa jirta xalay oo dhan hal target bay sameeyeen 2-6 Man City markay la ciyaarayeen hal target bis ay sameeyeen 2-7 Crystal Palace hal target Man United 2-9 hal target ku sameeyeen 2-10 hal target ku sameeyeen 2-10 Southampton hal target bay ku sameeyeen oo shoot ah waa 5 ciyaarood oo Liverpool hal shoot oo target bis ay ka sameeyeen ciyaaraha Premier League marka nimanka kanu sanadkan waa loo yaabaa ogowna sidoo kale Liverpool xalay shootkeedii ugu horeeyay target wuxuu ciyaarta simaaday daqiiqadii 75aad Everton Southampton garaaci oo zero Southampton garaaci micna شغل ما رتني إن أصلاً تون قراعي شغل ما ربيو يا ما استمتم يان وحين كوي من التلفون جول كجوهر برا ملاحكة لوجو بدلي جول لوجو بدلي كم بق بيمن تبان لوجو تغيي عيانتان أوجونا مركا نيمان ساوثهامبتون دقيقة دي تضبعات نشانات كتور هل شو ذو ترجع هل كسبين هل كسحبها هلي ومعقول معا مركو حلولي هاي إن ليفربول شوت كده وجوهر عيار وي ما ذو دقيقة دي تضبعات نشانات ترجع وسوقتانكي ugu weyna Liverpool ay target shoot sugto tan iyo December 2020 markaasna shootkeedii target wuxuu yimaaday daqiiqadii 89aad markaana waxay la ciyaarayeen kooxda Newcastle marka ogow Danny Ings ayaana xalay dhaliyay goolkiisii kontonaad ee Premier League markuu ciyaaray 124 kulan waxaana uu ahaa Danny Ings goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee Ings uu dhalanayo waayiisa ciyaaraha markuu daqiiqad ku dhali ahaan hal daqiiqo iyo kool biraqsi ayuu gool ku dhaliyay habkaas waxa wax u difaac ma taqaanaa هندرسون يفبيبا جول كودي فعلياه ها ولا كوحدي يصير وقش بي حاليو يا وانا لقويي ساكي من توحي لين انقسو بلاد هذا بريمير ليج وانا كون دياريننا وكايو حاليا بريمير ليجي